waftigii uu horkacay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Xaaji Cali Aadan ee dhawaanaha ambassadorka shaqo ku gaala bixinaya deegaanada Sanaag ayaa si weyn loogu qaabilay magaalooyinka Badhan iyo Hadaftimo waxaana waftigu markii ay soo gaareen gudaha magaalada Badhan ay dadweynaha uga mahad celiyeen sida diiran ee ay soo dhaweeyeen iyagoona ujeedada safarkooda ku sifeeyay inay tallaabo ka qaadaan sanaaduqda maamul goboleedka Puntland ee deegaanada Sanaag bari lagu soo daabulayo عاصمتي منطقتنا ويساك أموقتها مركز أكتو قروحنا مقابلة دينا نشكور تمادين يدو ولي رمضان وبشي كريم كا مر يلا يصدح با ومدنتينين عن يدين مع العلم هدف كيغا أن أنمي هالكا وحنو أنمي هالكا صناديقنا فيلصدا اللي لو ريغايو ميل والبديدي قبلدي واوينا بودلاند ديدين عيلكو ديدي دولكو ديدي دولكونا ديدين deegaankeena ay isxil qaamaan ay odayaashoodu maxaan ku raahdaa ay isxil qaamaan waxgaradkooda isxil qaamaan ururada bulshada isxil qaamaan oo maxaan ku raahdaa qadiyadan u soconna ay nagala shaqeeyaan in sida wasiirka sheegay gaalkacaya laga diido oo qarna laga diido gobolada Puntland oo dhan laga diidayaa inana aynu si nabadgeliyaan raano wanaga jooga si kastaba aatee booqashada waftiga xukuumadda Soomaaliland ee deegaanada Sanaag bari ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmo kooban ay ka hareen waqtigii loo mudeeyay qabsoomidda doorashada maamul goboleedka Puntland Maxamed Yuusuf Bakayle TV-ga Universal Arigabo